بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن ونكسن دقيسيال داوديال halkaad naga daawanaysaan waa Soomaali Banaadir TV barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa taariikhda kooban ee Kuuriyada Koonfureed oo sidoo kale loo yaqaano Jamhuuriyadda Kuuriya waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaala bariga qaaradda Aasiya waxaana uu xuduud la leeyahay wadamada Kuuriyada Waqooyi, Jabaan iyo Shiinaha. caasimadda wadanka aanu ka sheekeynayno ee Kuuriyada Koonfureed waxaa la yiraahdaa Seoul oo ah magaalada labaad ee dunida ugu weyn oo la aaminsan yahay in la degan yahay muddo nus milyan sano ah. Tirada dadka u dhashay dalkani waxaa lagu qiyaasaa 51 milyan oo ruux. Wadanka dadka ugu badan ee ku nool yihiin magaalada caasimadda. luqadda rasmiga ah ee wadankan waxaa la yiraahdaa Korean. lacagta wadanka laga isticmaalo waxaa la yiraahdaa South Korean won. gaadiidkuna waxa ay isku dhaafaan dhanka midig marka South Korea la joogo. dalkani waxa uu madaxbannaanidiisa ka qaatay Jabaan oo aysan jiray 15kii bishii Agoosto sanadkii 1948 waxaana dastuurka wadankani la qoray Oktoobar sanadkii 1987. taariikhyahanadu waxa ay sheegeen in magaca Kuuriya uu ka yimid boqortooyadii Kuuriyada la oran jiray waxaana dhulka wadankani ku yaala qiyaastii 3000 oo jasiiradood inkastoo badankoodu aan la deganeyn. sanadkii 1950kii ayuu dalkani ka go'ay waqooyiga Kuuriya oo markii hore hal wadan isku ahaan jiray. dagaalkii Kuuriya oo soo gaaray ilaa 1953 waxaa la aaminsan yahay in ay ku naf waayeen 1 milyan oo ruux. xagga dhaqaalaha haddii aan eegno dalkani waxa uu ku yaalaa suuqa 13aad ee dunida oo dhan ugu weyn, sidoo kalena waxaa ku yaala warshadaha shirkadda ugu waaweyn ee soo saara qalabka elektaroonikada loo yaqaano oo ay mobileska ka mid yihiin. dalkani waxa uu ka mid yahay wadamada dhaqaalahoodu sida xawliga ah u kobcayo waxaana dhaqaalaha wadankani ku tiirsan yahay ganacsiga caalamiga ah. South Korea waxa uu noqday dalka shanaad ee dibadda waxa uu dhoofiya iyo kan toddobaad ee wax loo soo dhoofiya. dalxiiska ayaa ka mid ah ilaha dhaqaalaha ugu badan uu dalkani ka helo waxaana sanadkiiba booqday wadankan 11 milyan oo ruux celcelis ahaan. dhanka dalxiiska waxaa dalkani Kuuriyada Koonfureed kaga jiraan wadanka 20aad ee dunida loo dalxiis tago. dowladda South Korea waxaa hawada ugu jira qiyaastii 10 dayax-gacmeed oo qaarkoodu ay ka qaadato caagaga dadka la okeysiyay oo haddana shaqooyin kala duwan qabta oo loo yaqaan robotka ayaa ka mid ah waxyaabaha wadankani lagu farsameeyo ee haddana dhaqaalaha ugu badan laga helo. waa dal ay dadkiisu helaan internet aad u xawaaro sareeya iyo taleefanada xarakada leh ee dunida hadda aadka looga isticmaalo. shirkadda taleefanada gacanta sameeya ee Samsung iyo LG ayaa wadankani ku yaala waxaana dadka taleefanada gacanta haysta ay bulshada wadankaasi ka yihiin 90%. dhaqanka dalkani waxa dadka wadankaasi u dhaqan egyihiin dadka dalka Kuuriyada Waqooyi waxaana raashinka lagu jecel yahay ee martida la siiyo waxaa la yiraahdaa Hangongyeori waana baasto maraq iyo khudaar leh. xagga diimaha haddii aan eegno daraasadda la sameeyay sanadkii 2014 waxaa lagu sheegay in dadka wadankaasi aysan jirin diin ay u badan yihiin. muslimiintu waxa ay wadankaasi ka yihiin dadka ugu tirada yar waxaana la aaminsan yahay in islaamku gaaray qarnigii 7aad. ganacsatada Carbeed iyo dadka ka soo jeeda dalka Malaysia ayaa geeyay ku dhaqanka shariicada Islaamka. mid ka mid ah masaajidada qaaradda Aasiya ugu waaweyn ayaa wadankani ku yaala waxaana dhistay hay'adda Malaysia laga leeyahay. dhanka cayaarta lagdanka oo wadankaasi looga yaqaano Taekwondo ayaa ka mid ah cayaaraha lagu jecel yahay marka wadankaasi la joogo. daawadayaal dhegeystayaal inta ayaan ku soo afmeeraynaa